الرحيم إذا لهانتين بالضاوضة يا الملك استوى نقد داونا يسان واحد كسر دواتان مركلة يولي ببرنامج كيلي شايدة دعم بورجيسد واحد قران هذين كان عوا ضاوضة يا الحبناها عن كسر قادم دونا برنامج كينان أيا وحاك من نقندونا وده هذا الذي جمهورية الصومال لان يوطن كاينو شاركنا هاي الصومالية أفرماي سلاسلو أو سكة سهديب وقدعي waxaa kaloon daawadayaal ku soo qaadan doonaa wadahadaladii Addis Ababa uga socday kooxaha amaba dhinacyada isku haya koonfurta wadankaasi Suudaan oo iyagana uu hakad galay xubnahaas iyo xubno kale oo xiiso badan ayaa daawadayaal aan ku soo qaadan doonaa intaan ku guda jirno barnaamijkan wargeysyada ama bijraayada haddii aan daawadayaal soo qabto xubinta ugu horreysay barnaamijkeena wargeysadii habeenkan caawaaya waxaan ku soo qaadan doonaa wargeyska geeska Afrika ayaa cadadkiisii maanta soo baxay oo ahaa 1894 waxa uu ku soo qaatay wadahadaladii Somaliland iyo wadanka aynu jaarkanahay ee Soomaaliya u furmayay salaasada oo si kadis ah dib u dhac ugu yimid haddaba daawadayaal wargeyska geeska Afrika isagoo amuurtan eegaya waxa uu ku bilaabay wadahadalada Somaliland iyo wadankaasi Soomaaliya oo qorshaysnayn salaasada toddobaadkan ka furmaan wadanka Turkiga ayaa si kadis ah dib u dhac ugu yimid si rasmi ah looma garanayo sababta keentay dib u dhacaasi degdega ah wararka uu geeska Afrika helay waxa intaasi ku darayaan in dawladda Soomaaliya dalbatay in wadahadalka dib loogu riixo ilaa 15 bisha January halka ay markii hore ka ahayd toddobada bishan oo ku beegnay salaasada wafdiga Somaliland oo maanta qorshaystay inay anbabaxaan ayaa xalay caweyskii lagu wargeliyay in safarkoodii u baaqday wasiirka arrimaha dibadda Somaliland mudane Maxamed Biixi Yoonis ayaa hore u sheegay in wadahadalka labada dal uu furmaayo salaasada toddobaadkan dawladda Soomaaliya ayaa u muuqatay inay ka warwareegayso wadahadalada labada dal u dhaxeeya waxaanay hore dhowr jeer dawladda Turkiga ugu codsatay in dib loo dhigo wadahadalada iyadoo marmar ka dhiganaysa in dalkeedu ku jiro qalalaase siyaasadeed oo aan u saamaxayn ka qaybgalka shirkaas ayaa uu leeyahay wargeysku haddii aynu daawadayaal intaasi kaga nimaadno xubinta ugu horreysay barnaamijkeena wargeysyada habeenkan caawa xubinta labaad ee ku soo qaadan doono barnaamijka wargeysyada ayaa waxay tahay wadahadaladii Addis Ababa uga socday kooxaha amaba dhinacyada isku haya wadankaasi koonfurta Suudaan oo iyagana uu hakad galay haddaba daawadayaal amuurtan waxa eegaya wargeyska Haatuf ee ka soo baxa caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa waxaa dib loo dhigay wadahadladii u socday wufuudda ka kala socota dhinacyada isku haya dalka koonfurta Suudaan kadib shirar labadii maalmood ee u dambeysay dhinacyadaasi uga socday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya oo la doonayay in khilaafka lagu dhameeyo lama cayimin waqtiga rasmiga ee uu dib u furmayo waxaana uu dhexmariyay dhinacyo kala metelay madaxweyne Salva Kiir iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi Riek Machar iyadoo shirka hakadka galay ay goobjoogayaal ay ka hayeen xubno kormeerayaal ah oo ka socday qaramada midoobay midowga Yurub iyo waliba midowga Afrika wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya iyo madax kale oo ka tirsan urur goboleedka IGAD ayaa dabada ka riixayay in la wada hadlo si meesha looga saaro khilaafka isla markaana loo gaaro heshiisyo rasmi ah oo ku saabsan xalinta arrimaha colaada ee ka socda dalkaasi wargeyska ogaana bogiisa madasha wargeyska ayaa daawadayaal waxa uu ku soo qaatay hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya oo uu qaabkii u dilay adeerkii la kashifay haddaba daawadayaal wargeyska ogaal isagoo oo bogiisa madasha wargeyska ku eegaya xubintani waxa uu dhigay sidan wargeyska ka soo baxa dalka Shiinaha ayaa daabacay warbixin uga hadlaya qaabkii loo dilay adeerkii hogaamiyihii Kuuriyada Waqooyi kaasi oo shabaq loogu tuuray 120 ay oo muddo 3 maalmood ah la gaajaysiiyay wargeyska ayaa intaasi ku daray in adeerka hogaamiyaha la dilay in isaga iyo 5 ruux oo kale ay aydaasi muddo saacadaha cunayeen dalka waqooyiga Kuuriya ayaa ayda ay siinta waxa uu ka yahay ciqaabta ugu adag waxaana lagu eedeeyay Neik oo ahaa ninka labaad ee xukunka in uu ku kacay khiyaano weyn waxaana da'diisu ahayd 67 jir sidoo kale waxa lagu eedeeyay in aanu si wanaagsan oo xamaasad ku dheehan tahay aanu ugu sacbin hogaamiyaha xilliyada kulamadu ay socdaan wargeyska Foreign Bogiisa ciyaaraha ayaa daawadayaal waxa uu ku soo qaatay tababaraha kooxda Manchester United David Moyes oo diiday in uu xaqiijiyo in Wayne Rooney uu sii joogi doono kooxdaasi haddaba wargeyska Foreign isagoo amuurtan ka hadlaya waxa uu yiri
mustaqbalka Wayne Rooney ee Manchester United ayaa shaki cusub geliyay iyada oo tababaraha David Moyes uu diiday inuu xaqiijiyo in xidiga England uu ku sii nagaan doono Old Trafford haddii Manchester United ku guuldareysato inay u soo baxdo Champions League. markii si gaar ah loo weydiiyay mustaqbalka Rooney, Moyes ayaa kaliya ku jawaabay waa in aan sugnaa oo aan aragnaa waxa dhici doona haddii xaaladdu ay sidaas noqoto. Rooney oo 28 jir ayaa shalay baaritaan ku sameeyay dhaawac bowdada ka qaba waxa aan 18 bilood uga harsan tahay qandaraaskiisa haatan welina ma saxiixin heshiis cusub. rajada ay Manchester United ka qabta in ay ceshato xidigeeda ayaa waxa dhaawac weyn u geysan kara haddii uu soo bandhigi waayaan inuu ka ciyaaro Champions League xilli ciyaareedka soo socda. waxa aanay haatan kaalinta toddobaad kaga jirtaa Premiershipka Ingiriiska. Manchester United iyo Wayne Rooney ayaa sanadkii hore ee dhamaaday waxa ay tiraba 2 jeer isku seegeen heshiiska uu kooxda kula joogayo iyadoo uu warar in badan la baahiyay sheegi jireen in Rooney uu ka tagi doono dhawaan kooxdiisa Manchester United. markii uu Ferguson kooxda joogay ayay soo baxday isjeer Rooney iyo kooxdiisa waxa aanay tiraba dhowr jeer lala xiriirinayay inuu koox kale tagayo oo ay u kala dhamaatay Rooney iyo kooxdiisa Manchester United. ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo ee u safta kooxdaasi Real Madrid iyo xulka wadankaasi Portugal ayaa isagu waxa uu abaalmarin ama bilad ka helay madaxweynaha wadankaasi Portugal. haddaba daawadayaal sidaasi waxa qoray wargeyska Ogaal isagoo ku qoray bogiisa ciyaaraha waxaana uu ku bilaabay sidan: Cristiano Ronaldo ayaa bilad qaali ah ka helay madaxweynaha wadanka Portugal. xidiga sare ee kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa lagu abaalmariyay bilada ugu sareysa wadanka Portugal taas oo uu bixiyay madaxweynaha wadanka Portugal. 28 jirka ayaa ka helay abaalmarinta loo yaqaan Prince Henry waxaana guddoonsiiyay madaxweynaha Portugal Aníbal Cavaco Silva. xaflad ka dhacday toddobaadkii tagay wadanka Portugal caasimadiisa Lisbon. madaxweynaha oo halkaas ka jeediyay khudbad ayaa waxa uu yiri: waa sumcadda adduunka ee Portugal waxa aanu sameynayaa saameyn ka badan mid caalamiga waxa aanu tusaale fiican u yahay jiilka yaryar ee wadanka Portugal ayuu yiri madaxweynaha wadanka Portugal. Cristiano Ronaldo isna xafladaasi ka hadlay ayaa yiri waxa ay ahayd habeen dareen leh mulkiyad iyo sharaf. Cristiano Ronaldo ayaa xulka Portugal ka caawiyay xagaagan in ay xaqiijiyaan booskooda koobka adduunka markii uu saddexley ugu shubay wadanka Sweden ciyaar ahayd knockout. intaasna daawadayaal waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii wargeysada ama jaraa'idada waxay qoraan oo saacadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. habeenkan caawana daawadayaal barnaamijkii intaas ayaa aan ku soo afmeerayaa. kamaradaasi quruxda badan waxaa duubayay Fawzi Ahmed Caynab, waa habeyntii isku dubridkii Maxamed Ibrahim Dembil, Khadar Dhayne, Cismaan Tiyo iyo anigoo Jamaal Axmed Naasir oo idinkaga tagaya barnaamijkan barnaamij la mid intaan iskugu iman doono is aragtimo qal dambe ka hor. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.